الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد waxaan rabaa kelimad inaan ka iraahdo maqdac hadda ka hor laga gooyey kulliba sida la ii sheegay tafsiirka oo la nashriyey oo ku saabsanaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku ganacsada Koonfur Afrika arrintaas oo walaalaha gobol ay xoogaa dhibsadeen arrintaasuna waxay ku saabsaneed nin walaalaha ku ganacsada Koonfur Afrika ka mid ahay soo wacay wuxuu igu yidhi ganacsiga yaga waxaa ka mid ah qofka gaalka marka uu noo yimaado oo lacag dollara noo keeno oo badeeca uu nagala heshiiyo badeecadaas markaan uga gadanno haddii dollarkii iyo laysku sarrifo lacagta waddanka lacag baaqiya u soo haray lacagtaas uma reebno lacagtaas ma siino iskala harna khaasatan marka ay cabsan yihiin oo kale lacagtan ta ka qaadanno ama dollar ha ahaato ama lacagta waddanka ha noqoto lacagtan ka qaadnaa markaan ka qaadanno badeecadii uu markaas doonayaan siinaa lacagta hartayna waa iska qaadanna saasaan ula macaamilnaa huu yidhi khaasatan kuwa qamrada soo cabay oo aan maanka lahayn wakadaalika carruurta yaryar markay wax u soo dirsadaanna qaabkaasaan ula macaamilna lacagta ay keenaan badeecada ay ku doonayaan hadday ka badan tahay markaan badeecada siino baaqiga waa iska qaadannaa huu yidhi wuxuu yidhi arrintaas keligay maahane dad badana saas ku shaqaystuu yidhi wuxuu yidhi hadday xalaal tahay waxaan rabnaa aan guranno gaalada ka taajirnay in naloo sheego hadday xaaraam tahayna nala kaga digo saasaan codso lahaayuu yidhi walaal kaleeto oo markii kadib soo wacayna wuxuu asna nuucaasoo kale hadal u eg ayuu sheegay oo waa ayiday kelimadda marka ujeeddadeedu un waxay ahayd dadka soomaaliyeeda meesha ku ganacsadaa waa walaalahay waa dad soomaaliyeed oo haddii la yidhaha nasab ahaan qaraabo weeye soomaalidu dhammaan dhanka kalena waa dad muslimiin ah oo diinta walaala ku ah dhibkoodaa dhib ii ah dheeftooda iyo waxtarkoodana waxba tara ii tah waxaan aad uga naxay khiyaanadaas dhibaatada ay keeni karto maxaa yeele rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kahiir wax alla dhibaataday ku dhacda dhammaanteed dunuub aad shaqaysateen sababteeday ku dhacday in badanna weliba alla weynin ka cafiyey marka si asbaabta halaagga keenayda ee baaba'a keenayda looga badbaado unbay ujeeddadeedu ahayd wax kale ma ahayn walaalaha cadowgu dhacay waan ka murugsanaa waana ka xuma marka walaalo badan oo kale oon is aragnay ayaa waxay igu yidhaahdeen annaga arrinta aad sheegtay meesha waana ka shaqaysanna mana ku shaqaysanno arrin caama oo dadku ku wada shaqaystaanna ma ahan ashqaas gaar aha ku shaqaysatay sidaas daraaddeed hadalkiina caamad ka dhigtay arrintaas inay ka xun yihiin ay ii muujiyeen walaalahaasu markaasaan waxaan rabaa inaan idhaahdo kow horta walaalkii aan samayn ilaahay baa ku mahadsan walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf dembowday naf kale dembigeeda ma xambaarayso aakhiro markaa qofkii khiyaanada sameeyey unbaa dhibku ku ekaa doona laakiin arrintay jirtaa waxay tahay haddii qaar ka mida xumaan ay sameeyaan oo ay dadkii khiyaanaan ama salaaddii ay uga tagaan dhaqaalo kasab ama ay maandooriyo gadaan sigaar iyo maandooriyayaal kale ay gadaan waxay keenaydaa arrintaasu cuquubadu markay timaadana dadkii qaladka sameeyey gaarku noqome sida rabbulcaalamiin uu yidhi waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilaahay weyna wuxuu leey waxaad iska ilaalidaan musiibo aan ku gaar noqon doonin dadkii xumaanta sameeyey dulmiga sameeyey nabiguna sala allahu calay wasalam waa kii ku mithaaliyey dadka qaladka samaynaya dadka aan samaynayn dad doon laba dabaqa isla koray inay la mid yihiin qoladii dabaqa hoose saarneed ayaa markay biyo u baahdaan qolada koray aadaan markaasay kor ka darsadaan webiga markaasay markii dambe waxay yidhahdeen maxaan annaga
walaalahan u dhibayna mar walba usii marayna usoo marayna webigii wuxuu ka dhow yahay hoosteenna ma alwaax ka siibno hoosoo biyaha ka darsanno nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddii walaalaha kore gacanta ka qabtaan oo ay ka celiyeen labada qolo way isla badbaadayaan laakiin hadday yidhaahdaan waxay ka helaan aan aragna ha loo daayo waa isla halaagsamayn labadu hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay dadka muslimiinta meel ku wada nool qaar hadday xumaan sameeyaan oo xumaantu muuqato hadday xumaantu qarsoon tahay halaag caama ma keento laakiin xumaan hadday sameeyaan oo intishaarto oo ay muuqato oo kuwa kale aysan ka celin cuquubada adduunka timaada waa camiimayda laakiin waa ogahay dadku inaysan wada jaahiliin ahayn oo qaar ka midu ay og yihiin dhaqankaas inuu xaaraam yahay khiyaanaduna ay xaaraamta salaadlaantu ay xaaraamta maandooriyuu xaaraam yahay oo ay dad ka miduhu dad adkhiyaa yihiin oo ka dhowrsana xaaraamta qaar ka miduhu inay gartaan mucaamaladiinna sharciga si ay u waafaqdo culimmada weydiiye waan ogahay ummadda inaysan xumaan isku wada raacayn ilaahay weynaana wuu ka ilaaliyey ummaddan inay dad xumaan wada iskugu dubadhacan noqdaan marka kelimadayda ujeeddadeedu waxay un ahayd dadka qaar ka midoo xumaan sameeya halaag yuu nooga imaan ee asbaabtaa layska daayo kelimadayda ujeeddadeedu waa sidaas dad wanaagsan xumaanta iska dhowrsada dad cilmi leh dad culummada la xidhiira inay ku jiraanna waan ogahay marka ujeeddada maqsadku wuxuu ahaa doona la wada saaran yahay yaynala degin ee kelimadaas ujeeddo kale kama lahayn wixii walaalahoo dhibsadana ha ka raalli noqdeen wa sala allahu wasalama wa baaraka calaa nabiyina moxamed